السلام عليكم أصحابتي وحري دب ما أنت بقولي وبنا ما هذا اللي هذا يقول عصب تسكري بيسر وتسكري بيسارين حالي ما هذا رجال مدك حابة الدنيا تذكينا كلهم إننا شعب كينا حكا أسكت كورينين إيه نبضك صودا بالا الدنيا كأول تكلم والبكر فن عض أيوك قادر عميشان مركو حايد الله هاي تذكينا بطس ويلاين sida dadka kala u tura dadkiina taasa idin dardaaran iga senator Degri oo labaduba markaasi iyagu ka soo jeeda Galmudug si arintan hal meel looga soo wada jeesto waxaana ay markaa ka socday deegaankaasi wada hadal muddo dhowr maalmood qaatay oo horay markaasi deegaanka u sii joogay General Laba Afle waxaana uu Laba Afle markaa kulan uu la qaatay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo kulamo dhinacyo badan taabanaya ay halkaas markaa labadooda ay ku dhaxmareen walow kulamadaasi faahfaahin rasmi ah aysan warbaahintu ka helin balse warar hordhac aanu ka helayno ayaa waxay sheegayaan in isu soo dhawaasho uu jiro walow siyaasiyiinta aan hadda magacaabay iyo dadka madaxda ah ee xilalka ka haya dawladda dhexe ee Soomaaliya iyaguna markii deegaankaasi ay gaaraan iyo ragga culimada ah ee Dhuusamareeb jooga ee arintan ku soo baxay dadka reer Galmudug ay sheegeen inay ka filan karayaan natiijo wax ku ool ah ay ka soo baxdo maadaama maamulka Galmudug uu isagu haatan uu yahay maamul mid ah oo hadda kala qoqobnaan iyo waxyaabo kala duwan aysan ka jirin deegaanada Galmudug marka laga reebo arinta ahlu sunna wal jamaa ee dagaalada markaas ka dhacay Gurceel iyo waliba siyaasadaha Galmudug iyo ahlu sunna u dhaxeeya waxa kale oo jirta waraysi uu bixiyay hogaamiyaha guud ee ahlu sunna wal jamaa Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax oo uu ku sheegay mar laanta afka Soomaaliga ee BBC-da la hadlayay in saami qaybsi ay rabaan oo horay ballanqaadyo dawladda dhexe ee Soomaaliya u sameysay looga baxay waa sida uu hadalka u dhigay in badan oo idin kamid ahna ay markaas dhigeysteen waraysiga ama muuqaalkaas ay daawadeen waxa kale oo waraysigaasi ku jiray dabcan waxyaabo badan oo uu markaas kaga hadlayay arinta ahlu sunna iyo sidoo kale dawladda dhexe ee Soomaaliya arrimaha markaa ka dhex taagan khilaafka uu sheegay wadaadku inuu jiro dad badan oo reer Galmudug ah ayaa waxay maalmihii ugu dambeeyay wadeen dadaalo kala duwan oo ay ku doonayaan in arintan hal meel looga soo wada jeesto maamulkan Galmudugna aan la dumin oo iyagu markaas wuxuu soo duubayay in tabashada ay qabto ahlu sunna wal jamaa la xaliyo dabeedna meel looga soo wada jeesto waa sida dad badan oo reer Galmudug ah ay maalmihii ugu dambeeyay ay ka shaqeynayeen haday noqon lahayd ganacsato iyo sidoo kale haday noqon lahaayeen siyaasiyiin waxaana bulshada deegaanada Galmudug ku sugan ay maalmihii dambe falanqeynayeen arinta ka jirta deegaanka Bohol maadaama hogaanka ahlu sunna iyo sidoo kale ciidankooda ay ku sugan yihiin halkaasna uu General Laba Afle muddo dhowr bari ah dabayshu ugu dhacaysay sidii arintan ahlu sunna iyo sidoo kale dawladda dhexe iyo waliba maamulka Galmudug dhinacooda